waxaan markii ugu horeysay ay guddigii aan soo dhisnay jaaliyadu ay dhiseen oo ay mataqaanaa ku tala galeen in mataqaanaa wax waara ummad Soomaaliyeed loo sameeyo in si wanaagsan oo sidii wanaagsanayd dadka naga horeeyay ay dhidibada ugu taageen jaaliyada annagana meel ka wanaagsan aan mataqaanaa si gaarsiino taa waxa laga maarmaan u noqotay in kow ay jaaliyadu hesho xafiis ama meel mataqaanaa rug ah oo jaaliyada howlaheedu ku qabsato ummaddu ku soo booqato mataqaanaa dadku ku wada shaqeeyaan marka waxaan idinku hambalyeeynaa intii maqashay iyo intaan maqlinba in mataqaanaa si rasmi ah jaaliyada ummadda Soomaaliyeed ay xafiis uga furatay wadada Jalanjarnaay ee ka dambaysa dhismaha qasr saba dabaqa cusub ee ka dambeeya inaan ka furno xafiis rasmi ah xafiiskaas oo xilliyada shaqada oo dhan mataqaanaa la heli karo oo qof walba oo Soomaaliyeed uu nagu soo booqan karo waa wax qabadkii ugu weynaa ee aan qabanay 3 bilood marka si loo eego waa muddo yar laakiin in xafiis la furo oo shaqada la qabtaa kulay miisaan iyo culays aynu wada dareemi karno taas oo idinku hambalyeynaa waxaan kaloo mataqaanaa aan jaaliyada ummadda Soomaaliyeed ay qorsheynaysi in mataqaanaa ummadda aynu u qabanno wax muhiim ah laakiin mar walba aynu ku wacyigelino bal in ayagana nagala qayb qaataan oo noo yimaadaan oo barnaamijkii talo iyo taagba ay nala garab istaagaan marka barnaamijyada ugu soo horeeya aan rabnay inay jaaliyadu qabato waxa ugu weyn waxa weeye waxaan soo wadnaa barnaamij inta sanadka dhammaan aan ugu magac darayno Somali Week barnaamijkan oo iskugu jira barnaamijyo badan oo kala duwan waxa kamida in mataqaanaa ay nagala soo qayb gali doonaan culimada inala joogta iyo culimo kale oo inooga imaanaysa wadamada dibadda qayb ka tirsan inay talk ama speeches ay sameyn doonaan sidoo kale barnaamijku wuxuu ka kooban yahay qayb aan dhalinyarada ugu talagalnay ciyaaro ah wuxuu ka kooban yahay doodo marka waa package barnaamij ah oo aan ugu rabnay inaan ugu magac darno Somali Week waxa ku jira aan rabnay inaan sameeyno isla barnaamijka ku darno in dadka Soomaaliyeed ee Malaysia jooga xaafadaha Soomaalida u badan tahay inaan u sameeyno free medical check-up ama baaritaan caafimaad oo free ah inaan u sameeyno ummadda oo si mataqaanaa dadkii ay jaaliyadu wax kasta u fududeyn karto ay u fududeyso marka free medical check-up ka dadku waxay heli doonaan in indhaha laga cabiro in mataqaanaa laga cabiro dadka xanuunada dhiigkarka sokorta waxyaabahaas oo dhan laga cabiro ayaguna ay jaaliyadii ay mataqaanaa ay arkaan jaaliyadii wareystaan mataqaanaa is arkaan isbartaan dadkooda ay dadku dareemaan muhiimadda jaaliyadu inay tahay inay u adeegno ummadda ee aysan ahayn in mataqaanaa wax kale ay shaqadeedu ahayn tan kale aan rabay inaan ka hadlo waxa weeye dowrkii laga rabay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Malaysia waxa jira jaaliyada waxa weeye dhaqaalaha soo gala ma aha dhaqaale ay hay'ad ka soo qaado mana aha dhaqaale ay wadanka Malaysia ugu deeqeen dadka Soomaaliyeed ee Malaysia jooga ee waa dhaqaale laga soo saaray jeebabka dadka Soomaaliyeed oo ay ayagu qaaraan ku bixiyeen munaasabadan aan sameeynay dad baa u huray waqtigoodii iyo qarashkoodii hadii kale ma aysan dhacdeen marka waa inaynu dareenno in jaaliyadu macnaheedu ay tahay laba qof oo wax isku daray wixii ka soo baxay in wax lagu qabtay sida awgeed jaaliyada dastuurkeedu wuxuu qabaa in dadku ay xubna ka noqdaan dadku marka xubna ka noqdaan ay bixiyaan mataqaanaa fee yar oo billa ah feega yarka waa 10 ringgit marka koobaad oo la register gareynayna waa 50 ringgit foomkii halkaas inoo yaala maanta waxa idin qaybin doona mataqaanaa organizerska marka waxa weeye 10 ringgit ama bishii aad bixisid يعني waxay suurto gelinaysaa barnaamijyo badan in lagu qabto
oo ummadda loogu adeego oo programkan oo kale culimadeena ka faa'iideysano activities badan loo qabto ummadda Soomaaliyeed waa ogahay oo waan hubaa dhamaanteen waynu wada garanaynaa qofna ma quuri waayin 10 ringgit oo jaaliyada ku darsado laakiin waxa laga yaabaa inuu la'aa ma taqaana qaab uu soo gaaro hadaba waxa weeye laba liis baa halkan yaala midna waxa weeye midaan ugu talagalnay tirakoobka dadka oo waxaan inaan mustaqbalka insha Allah aan tirakoobno dadka Soomaaliyeed hadda qiyaas baalda waa 4000 waa 5000 wax saas leeyahay mustaqbalka waxaan rabnaa in tira sax la sheegi karo oo la dhigi karo 5000 baa ku nool ama 2000 baa ku nool la oran karo marka liis baa yaala ay ahayd dadku inay register gareeyaan kaas waa registration caadi ah laakiin qofkii raba in la soo wargeliyo program kasta oo dhacaya oo jaaliyadu qabanayso iyo activity kasta waxaana inuu member ka noqdo jaaliyada member marka noqdo shirarka waaweyn oo jaaliyadu leedahay oo dhan uu ka soo qayb galaya oo loogu talagalay ma taqaana memberska go'aanadu wax ka gaaraya loogu talagalay in wax laga wada gaaro waxa weeye wuxuu noqonayaa qof active ka ama qof barnaamijka aad uga warqabo aad ugu dhow noqonaya marka waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo intiina timaaday dadka aan isqorin ama aan register gareysnayn حتى هذا membership fee aysan imika bixin karin oo dadka ay soo dhiibi karin inay magacyadooda iyo listigooda qoraan annaga ayaa la soo xiriiri doona insha Allah taala marka waxaan rabaa inaan ma taqaana mar kale aan idinku hambaliyo ciid mubaarak idin yiraahdo intaas baan idin oran lahaa mar walba ku soo dhawaada jaaliyadiina iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan doonayaa inaan salaamo Hargeysa dhamaan wixii wada jooga iyo jigjiga adeeraday dhamaan iyo dooyinka Australia jooga iyo adeerkay Qaali Axmed Cabdi Ibrahim Shidi adeerkay Rashiid iyo adeerkay Yusuf Taar dhamaan waxaan dhahayaa ciid mubaarak ciid wanaagsan dhamaan intaan baan doonayaa salaamo yaa bahay Maxamed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu Amuna Maxamed Dheer waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxa la ciid mubaarak gaanaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo kan aad uga salaamayaa hooyada Aabay Aamina Xaaji Xuseen Aabay Maxamed waxaan kaloo ka salaamayaa walaashay Faadimo iyo walaalkay Maxamed Xirsi caruurtooda dhamaan walaalaha iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxa la ciid mubaarak waxaan kaloo ka salaamayaa walaashay Deeqowgaas waxaan leeyahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan kaloo ka salaamayaa shaqaalaha TV-ga Somali Channel dhamaantii waa mahadsantiin waxaan ku bilaabay magacayga waxa way Fawziya Mawlid Maxamuud waxaan halkan ka salaamayaa aabay walaalkay aadka u jecelahay oo ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Gaarisa waxaan wadanka Australia ka salaamayaa odaygayga aadan ku jecelahay Bismillahir Rahmanir Rahiim alxamdulillah anigoo Ciise Maxamed Cali oo arday Soomaaliyeed oo ku nool dalka Malaysia waxaan u hambalyeeyaa dhamaan ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin aad ayaan ugu hambalyeeyaa munaasabadan ciidka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu sanadkan sanadkiisa kale nagu gaarsiiyo annagoo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash halkan waxaan uga dirayaa salaan ehelkayga khaasatan hooyaday Safiya Sheekh Warsame iyo walaalahay dhamaantood waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo khayr bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel alaale meel joogtaba ciid mubaarak ciid wanaagsan anigu Malaysia jooga insha Allah in halkaas ay hawada iniga soo marinaya waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel ay joogto waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa hooyaday waxaan salaamayaa odayaygii kulli dhamaantood adeeraday walaalahay kulli dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga Siyaad Axmed Sheekh oo jooga Malaysia waxaan maanta oo maalin ciid ah waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta meel walba oo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak khusuusan khaas ahaan waxaan si salaamayaa mujtamacan ka soo jeeda ee Soomaalida waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo bashbash iyo warbarwaaqo iyo walaaltanimo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ehelada meel walba oo joogaan waalidiintay walaaladay asxaabtayda waxaan leeyahay ku dhamaantood ciid mubaarak anigoo Maxamuud Shariif Cabdi Nuur waxaan salaamayaa dhammaan ciida udxiya ama carafo ee aan maanta ciidayno ayaa waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ummadda muslimka ah meel ay ku nool yihiinba gabihaanba waxaan kaloo salaamayaa oo si gaar ah u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin
ilaahayna waxaan uga baryayaa ilaahay inuu ka saara mixnada ay ku jiraan intaas sana ay dhex fadhiyeen ilaahay waxaan uga baryaa inuu qalbigooda soo jiido ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay isjeclaysiiyo ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay ka tawad aqbala inta toobad keentay intii aan toobad keeninna waxaan ka rajaynaynaa toobad keenaan waxaan si gaar u salaamayaa xaaskayga iyo caruurtayda oo qaarra Malaysia ku nool yihiin qaarra ay ku nool yihiin Soomaaliya qaarra ay ku nool yihiin dalka Turkiga qaarra ay ku nool yihiin dalka Mareykanka iyo waalidiintayda iyo walaalahay iyo qaraabaday iyo adeeraday oo intooda badan ay ku nool yihiin Itoobiya gabahaantoodba salaan ayaan u dinayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bixayr ilaahay caafimaad idinku noolaysiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi raxmaanir raxiim ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ee adduunyada dacaladeeda joogaan waxaan kaloo leeyahay kulli sano waa antu daybiin waxaan salaamayaa walaalahay Aamina Saleebaan Maxamed oo joogto Sweden iyo caruurteeda Mari Saleebaan Cabdi Saleebaan oo joogo Ingiriiska walaalka Ismaaciil Saleebaan odagayga oo jooga Canada caruurteeda oo Malaysia ila joogto kulli ummadda Soomaaliyeed caruurta ilma Saleebaan oo dhan waa wada salaamaya ciid mubaarak kulli sano waa anta dayb bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel adduunka daafiisa ku kala nool ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaan waxaan salaamayaa caruurtayda aan jecelahay Maxamed Axmed Maxamed Samiira Axmed Maxamed Cabdilaahi Axmed Cali Nuur dhammaan caruurtayda oo waan salaamayaa waxaan salaamayaa odagayga sharafta leh Axmed Cali Nuur waxaan salaamayaa walaashay ayaan xirsi jaamac oo joogta Sweden waxaan salaamayaa walaashay Saamiya xirsi jaamac oo joogta Hargeysa waxaan salaamayaa walaashay Queen oo joogta dalka Mareykanka gobolka ku nooshay ma garanayo waxaan salaamayaa gidi ummadda ciid mubaarak balle ciid mubaarak walaalayaal baan idin salaamayaa magacaygu waa Sayid waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan xafladdan ka soo qayb galo bulshada ku nool Malaysia gaar ahaan Kuala Lumpur waxaan halkaan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan familkayga hooyaday aabahay walaalahay iyo dhammaan intii magacayga iyo muuqaalkayga garanaysa aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla wadaago hambalyada magacaygu waa Cabdishir Ismaaciil oo jooga dalka Malaysia waxaan hambalyo ballaaran u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed shalay iyo maanta kala iiday inta dalka joogtay inta dibadda joogtaba waxaan ku faraxsanahay inaan iida kala qayb galo jaaliyadda Malaysia aad baan ugu faraxsanahay saaxiibadeedii hore iyo kuwii dambe inaan arko kullu caam wa antum bixayr ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa farxad iyo qurux iyo bidaan iyo bilicsami inay maalmahan iida 3 bari 4 bari ku qaybsamaan inta magacayga iyo muuqayga taqaan waxaan u dilayaa salaan qaali oo kaliya laawa intaan jecel waxaan halkan ka salaamayaa my people dhammaan muslimiinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhaqan yihiin waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bixayr waxaan si gaar ah halkan uga salaamayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin si gaar ah waxaan u salaamayaa bulshada Togdheer gaar ahaan madaxtooyada ragga magacyadooda ma sheegay laakiin way isgaranayaan والسلام عليكم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكان كسلام يا أمة المسلمين تعمل كستي جوجان وحن لا يهي عيد ونكسن عيدا هذا نبض يا برواقة كعيدة وحن ويدينا يا الله أمة الصوماليات إنه إلهي نبتقل يسيو ذل كنا كعيدنا نجس تايم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان أمة الصوماليات مال كستي جوجان وحن الله يهي عيد ونكسن وحن سجار السلام يا هو يدي وشوكت مقالة جروي سارة عبد الله أحمد وحمد الله يا دمان عيد ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقى وحنا السلام يا دمان ومد مسلم كامل كسي شوكتو وحنا الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وحنا القصة خاصة والسلام يا دمان فاميلي كامل كسي شوكان هو يدي ولا رضي يفاميلي خاصة وحنا الله كل عام وأنتم بخير عيد ده الله عافماد يبش يبروغين وقرسيو بسم الله الرحمن الرحيم دمان ومدة إسلام كوحن لي عيد ونكسن قانان ومدة الصوماليين نقول مقعد يا خضر محمد عبد الرحمن أنا وكفى يدي سنة فرصة أن أعطي قيمها بدنا نهلكم كوها لما أنتوا اللي ود بالدقة مناسبة عيدة نوعية بدنا نسوق عن مدة يدنا يد سوق معدن هلكم
ka salaamaya labadeeda waalid aad igu qaaliga hooyada Aamina Xuseen Warsame iyo aabahay Maxamed Cabdi sidoo kale waxaan salaamayaa walaasheeda jecel Faado Maxamed Cabdiraxmaan iyo saygeeda iyo ciyaalkeeda sidoo kale walaashay Deeq iyo walaashay Murayak barnaamijna ummadda islaamka dhammaan gaar ahaan Soomaalida waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkeeda ku gaar bash bismillaahir rahmaanir rahiim kull caam wa anta bikhair waxaan salaamayaa muslimiinta caalamkooda ciidaysa ciid wanaagsan anagu maanta ciidnay waxaan salaamayaa waalidkay Faadma Xasan Rooble iyo aabahay Shirmarki Yuusuf waxaan salaamayaa walaalahay oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kull caam bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Dooy waxaan halka ka salaamayaa dhammaan familkayga reer Xasan Dooy oo dhan meel kasta adduunka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak sidoo kale asxaabtayda qaaliga meel walba adduunka joogaan waan salaamayaa ciid mubaarak ciidan ciideeda ku gaara samay iyo baraare السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أنيقا مقعيقا اللي يراهدو آمنة حسن عداوة جوغا دالك ماليسيا وهرينتي وحان همباليو يو بوغادين دادك مناسبة نو دياريي جالية دا صوماليات أقوى يهندا أردادا ماليسيا جوغتا marka xiga waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ciid wanaagsan aan leeyahay marka kale waxaan salaan u dirayaa caruurtayda oo kala jooga Mareykanka Ingiriiska Afrika yani Soomaaliya Afrika way ku jirtaa laakiin Afrikada kale iyo Soomaaliya marka waxaan u dirayaa walaalahay dhamaan ilmaha Xasan Cadaawe iyo caruurtooda ay ugu horeeyaan walaashay Xaliima Xasan iyo caruurteeda oo jooga dalka Canada waxaan leeyahay walaalahay ciyaalahan habaryarta u ahay iyo ciyaalahan eedada u ahay kulli salaan inay gaarto dhamaan ilma Xasan Cawaale ilmahayga ilmaha ku aaba iyo caruurtooda dhamaan reer Cawaale duqow aan ugu jeclahay wiil la yiraahdo Axmed Cabdi Jayte iyo caruurtiisa oo jooga magaalada London salaan caruurta ilmahayga la dhalatana waxaan aad ugu hambaliyaynayaa Kamaal Xasan Cawaale iyo caruurtiisa oo jooga dalka Kenya Xuseen Xasan Cawaale oo jooga dalka Norway marka waxaan leeyahay salaan iyo hambaliyo kulli waxa kale oo salaan u dirayaa gabar aan aad u jeclahay oo walaashay ah iyo caruurta aan eedada u ahay Xabiiba Yuusuf Maxamed oo joogta dalka Soomaaliya iyo caruurteeda salaamullaahi calayka anigoo magacayga Badr Xuseen Sandool waxaan halkan hambali ciid ugu darayaa dhammaan Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay kull caam wa antum bikhair waxa si qaas ah meeshan hambali ugu darayaa dhammaan eheladayda qaraabadayda meel walba ay joogaan magacayga muuqaalka inta taqaano waxaan leeyahay kull caam wa antum bikhair ciid wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan Soomaalida waxaan kaloo salaan iyo kal iyo laab u dirayaa aabahay Axmed Maxamed Aadan hooyadayda Hawe Cilmi Xaaji Muuse odagayga Daahir Jaamac Shirwac iyo caruurtayda Maxamed Mahad Mumtaas Milyuun Musbaax Dahabo Axmed Ayaan Faadumo walaalahay sidoo kale Canab Axmed Aamina Axmed Mahad Axmed Faadumo Axmed Aadan Axmed iyo dhammaan muslimiinta meel joogaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa idaacadda Soomaali Channel baliyo ciid wanaagsan iyo ciid wacan indhaha wixii ummadda muslim dhamaa oo maqalkii iyo muuqaalkii ka saayaan waa ciid wanaagsan ciid wacan wixii familkayga iyo diyaashay oo Soomaali jiraan iyo walaalahay aad iyo aad baan salaamay wixii familkaygana Yemen joogaan aad iyo aad baan salaamay waa ciid wanaagsan ciid wacan bashbash ku ciida farxad iyo qeyr نيدين سيا إلهي وطنك نبض إلهي نقطة